hay-adda saadaasha hawada ee aduunka ee WMO ayaa sheegtay in boqolkiiba 70 ay u badan tahay in masiibada ilniino ay ku dhifato adduunyada ka hor inta aanu dhammaanin sanadkan aynu ku jirno. masiibadii ilniino ee ugu dambeysay ayaa waxa ay dhacday sanadkii 2015 ilaa 16 waxayna saameyn ballaaran ku yeelatay cimilada adduunka oo dhan. hase yeeshee khubarada cilmi baadhayaasha ayaa sheegay inaanay jirin in nooca ilniino ee hadda la filayo ay u awood badnaan doonto sidii tii dhacday 2015 ilaa 16. saraakiisha hay'addaasi WMO ayaa laga soo xigtay in isbeddelka cimilada adduunka ay saameyn ku yeelanayso marka loo eego astaamihii ay lahaan jireen masiibooyinkaasi dabiiciga ah. masiibada ilniino oo sidoo kale loo yaqaano southern oscillation ayaa ah dhacdo dabiici ah taasoo sababta in heerkulka sagxadda hoose ee badweynta Baasifiga uu qeyrilcaadi marna kor ugu kaco marna hoos ugu dhaco, waxayna saameyn ku yeelataa hannaanka cimilada guud ahaan dunida. musiibadii duufaantii ilniino ee dhacday waxay ahayd tii ugu awoodda badnayd abid ee soo marta adduunka, waxayna isbeddel ku samaysay heerkulka guud ee caalamka, iyadoo sanadkii 2016 ka dhigtay sanadkii ugu diiranaa taariikhda lagu diiwaan geliyo. kulaylka ka dhashay musiibadaas ayaa sidoo kale abaaro ka dhigay qaaradda Afrika, iyada oo ay raashin yaraani ku dhacday dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika. sidoo kale musiibada ilniino waxa ay fatahaado ka samaysay koonfurta qaaradda Ameerika, Brazil, Argentina, Uruguay iyo waddankaasi Paraguay. Siciid, Axmed, tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.